madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shalay khudbad ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegay in waqtiga ay u qabteen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku qabto shir loo dhan yahay oo looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka si loo helo nooc doorasho oo heshiis lagu yahay uusan madaxweynuhu shirka qaban inay iyagu isku laaban doonaan si ay u gaaraan go'aankooda. Axmed Madoobe ayaa sheegay in go'aanada hor yaalla ay qayb ka yihiin inay u yeeraan xubnaha labada aqal ee ku matala baarlamaanka Soomaaliya si ay u bilaabaan doorashada. Shir baan halkan ku qabanay golaha lagu sameeyay 20ka bisha ay muddadu sugaysaa hadday gaadho 20ka bisha inta ka horeysa Xasan shirki uu qaban waayo waxaan rabaa inaan go'aan marka anagu isla qaadano hadaan xildhibaanadeenadii u yeerayno doorashadii aan bilaabayno sanadka hore halkan laga bilaabo ugu horeysay golahani uu sanadkiisi bilaabayo doorasho la qabanayo Xasan aan la sugeyn haduu diidana de markay isteedyadu iyo dad waliba ay la soo baxaan xildhibaanadooda cidda uu ku haysanayo sharciyada uu ku haysanayo iyo dubaha aadan Madoobe sax weeyay waa ansax meesha la geenayo ma garanayo. Axmed Madoobe ayaa dhanka kale sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uusan doonin doorasho kaliyana uu rabo isfaham. Muddo ka badan hal sano yaan xamal aanu ka soo baxay October bay ahayd waxaan ku heshiin weynay madaxweynuhu sharci darro meel laguma tagayo shalay baynu ku haysanay dad aan ilaalino doorasho aan galno luqadda madaxweynuhu waxay noqotay waxaan u baahanahay ma jirto haddaan ku heshiino inaan inagu wada joogno uma baahnin doorasho ma rabno maxay kala maqan tahay sidaanaan ku joogayna. Axmed Madoobe oo sii hadlayay ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe in ay mas'uul ka tahay si kala fogaanshaha iyo kala tagga midnimada ummadda Soomaaliyeed. Dowladda dhexe ee Soomaaliya iyada sabab u ah maanta wax badan oo si kala fogaansho ama burbur keeni karaya sababtoo waxay noqotay dowlad markay dowladdu ka tagto systemkii dowladnimo ilaalintii nidaamka ay noqoto jamaaco yar ama koox yar oo wax daydaya oo xalkii siyaasadii dibadda iyo tii gudaha intaba dayacday waxaa imanaysa in cid waliba meelo badan oo kale gacmaha loo taago oo maanta fashilka iyo dhibaatada dhacaysa ay ku kasii waaweyn ay dhacayso.